marwal baan deena hawlaleedii waa ku xisaabtamaya ama waqti dambe iska yahay laakiin bal waxaan doonayaa in gabagabadu inay noqoto hawraar yar oo kooban oo aadadina ka dhigo maaragtay ku dhaqdhaqdaan hadalkii dheeraayaan halkan ka soo jeediyay intaanan odhan horta gabaygii aan ku bilaabay waxaan uga jeeday wuxuu ahaa 150 bayt buu ahaayo 150 ka bad intay aqoon xambaarsantahay haddii imika la siyaado bilaabo oo macneeya qiyaamuhu wuxuu dhacayaa iyada oo aan la dhamayn been sheegi maayo hada walle haddii imika la bilaabo 150 ka la yiraahdo aynu qallo been ma aha qiyaamuhu wuxuu dhacayaa iyada oo aan far aanay ka qodnay marka lagu leeyahay suugaad macnaha ku fadhido ururinta aqoonta ilaalinta aqoonta ururinteeda koobideeda si loo xafido loo hayo kulliba ma hadii dadka sharaf kale ka soo qayb galay waanigii horreysiyay halkan bidixdeeda waxa fadhiyay in la yiraahdo Yuusuf Cismaan waa ragga la wareegaya xilka gabayga hadii laga helo ragga 40 sanadood sidii u hayay inay ka baydhaan kulliba anigu inta la leeyahay naga dhaqaaq noo bandee ayaan ka mid ahay laakiin waxa leeyahay xagaan u dhaqaaqa meel walba waa la fadhiyaa waa la haystaa anigoo mid ay ku dul tuura mooyaan meel banaan oo aan u leexdo aan ku dhacaya ma jirto haddana in wadada sidii marar badan ba aan golayaal uga idhi xilligu wuxuu ku fiicay cid walba inaanay hibooyinku kullumin magaca weyn isku gudbin ee waqtigiisii qaatay magaca weyn oo hebel la yiraahdo ayaa ku gudban nin waliba 60kii intii ka horeysa halku yuurursaday ayuu soo fadhiyay kuleeyay la igu iman maayo haddaan la isu banayn oo aanay laasaar noqon oo nin waliba inta dardarta iyo xiisaa u hayo iyo caafimaadka intuu lagu jecel yahay aanu ka leexan aakhirka ceeb buu uga dhacaya qof kasta baa noqon maaha suugaanta quraya gabayga siyaasadda kamida kana kamida heesta kamida xagna kamida mid walba inta aad macnaha ku leedahay ilaa bartii uun garaaci maysido oo macna sameyn mayse fig meel baad leedahay wax la yiraahdo climax haddaad gaadho oo aad banay weydo ama waxa noqonaysaa hoos u dhaadhacdo habeen dambana way ku jirtaa ama inaad halkaas uun garaacdo marka intay macnaha sameynayso ay dadku kugu jecel yihiin aanad sii faganay wuxuu yiri hada la sii dhehbaa dilay hada allah sii dhehbaa dilay waa inaad banaysaa daabaa jirta xanuun baa jira xiisa dhac baa jira xil kale oo ku sugaya jira inaad anigu bagabeeyo waxa ka khayroon inaad si anna waxaan doonayaa inaan nasto si aan u nastana iska dhaqaaqi maaye waa inaan cid xilka ku wareejiyo cid aan ku wareejinayna waa inaan dadka hor keena waa inaan wixii aan ku dheerahay ama aan way aragnimo dheerahay ku kordhiya waa inaan dhisaa waa inaan wax ku biiriya waa inaan dadka hor keena waa inaan dadku bartaan tabadna aan ka bayraa oo ayana xilka la wareegaan aniguna aan ka nasto gabaygiis ka daayo mid kale oo loo dalacaa jirto oo had iyo goor maaragtay noloshu waa promotion ka sheegayay tu muhiim oo kale aan u gudbo hadii ilaahay ka dhigo marka Yuusuf Cismaan baa leeyahay ninkani waa ragga gabayga hadii ilaahay ka dhigo dhaxlaya habeen dambe habeenada kamida waxa la idin hor keenaya magaalada Hargeysa ragga joogay gabyaaga ee dhalinyarada ah ilaa 5 ilaa 6 ilaa 7 nin oo gabyaa oo aan waxba يعني دليل كل هاين هالكي جوجان لكن روتي مقعدة واويني أي كوجد بيجين سيدي لندن بقى كسمية يعني لحد اللي يرى سوف ريسيا ودوري اللي بتجراه تذكي عن مرتقات وفدية يعني سوف ريستين يعني سيدا وجشكية يعني أنا جوجا بيتريي ليرد هو اللي يلاهدو مركز كبحير بهذا بقى يجانا دقيست رجع مقعدة كوجد بيجين هنا تاتي أدي إسلام إيران هي سوديبا بدها العان كهسا وحول سياسة سمية هدانو هبل هاي مراها اللي يجي ما يقفك أي مقع اللي يجي أيام ده هو وين هاي ستارة ليه عكستون رشقة تاوي marka deegaanku ma ogoli in uu qofkaasi ku dhinto oo ay hibooyinku ku dhintaan magacayna weyn uu sida ugu gudbanaado anigoo imika isagu waqtiga leeyahay waqtigii soo qatayna kiisana ka hor joogsado isaga gudan karaya ma gudan karaya anigu horta sidaas fiican cid walbana saasun baan faraya qaybaha noloshu leedahay oo aanay inantii 60kii heesta bilowday oran wali waan heesiyaa oo kii gabeeyay oranayo ka kici maayo waan gabeeyaa oo siyaasigii oran la iigu iman maayo
waxaasoo dhammi waa ayaan darooyinka jira laakiin tani anigu kaalintaasaan taagnahay taasaa igu ogaanaysaan gabaygan anuba hooyadaaya waxaa ka horreysay hooyay la'aanta waxay ku saabsanayd hooyo waajibkeedii gudatay oo ubadkii ay dhashayna kadib markay iyadu waajibkeedii gudatay iyaguna ay abaalkii celiyeen hooyo iyo aabbe labadaba way marayaan meesha oo kab inankii wuxuu kaa heesayay hooyay la'aanta ama inaan ha noqdo ama inaan ha noqdee wuxuu ka mahad celinayaa dhibtii laga soo maray iyo daryeelkii iyo dadaalkii iyo hawshii iyo tacabkii buu ka mahad celinayaa dee midhaha waa haystaan hooyo la'aanta laakiin tani waa opposite-ka waa ubadkaa la koriyey rag iyo dumar mid kastaba ha noqdee ee maalintii heesaha loo dhameeyey ee tacabkiisii dhammaaday ee ay ahayd markaa inuu noqdo weel wax lagu shubto inuu noqdo hangool iyo gudin nolosha lagu ooto iska dhaqaaqay mar walba inta fiican ee rag iyo dumarii ee xaqaa guday kuma jirto waanay jiraan mar walba gabaygu ama dhaliishu ama canaatu si loo yidhaahdaba hadal iyo hawraar mar walba waxay u socotaa cidda leh ummaddu dee raganimona kama sinna iyo waajib gudasho iyo garasho waajib dee doqoniino iyo haddii ay ka dhigo iyo wadeeco iyo wantatacana kama sinne mar walba dhaliishu goob kastoo la joogo iyo geed kastoo la joogo waxay u socotaa inta leh rag iyo dumar taas sidaa loo ogaado marka tani waa hooyo inamay dhashay maana alifinoo hawada kamaan tirin oo mala awaal maaha ceelka lana la yidhaahdaan joogi hooyayna ma dhashay lana bay la joogaan may dhiman ma dheeraan qalbigu iyagii buu weydiinayaa jawaab bay u weyday qalbiga ay u sheegto iyadoo ama iska jiifta ama weel iska yar xalanayso qalbigii marba inamadaadii taasi marba boodaysa warkooda way haysaa dadku way weydiiyaan inamadaadii maye ma arkin ma odhan karto oo taasi way ka xishoonaysaa inay taado ima yimaadaanoo ma arko waxay kaga warrantana garan mayso marar badan habeeno badan hurdadu yani habeenku waagu wuxuu bariyaa iyadoo aan seexan godkeeda biyo ugu galeen waa sodohdii asalka ahayda xishood leh dhaqan leh hadalku aanu ku fiicnayn yaan lagu maqlin ku guntan oo ku tuntunsatay meelay u dhaaftaa aanay jirinoo wakhtiga ka warsugayso habeen oo dhan salaatileil iyo duco ayay ku jirtaa mar walba waqtigu soo taraayo arrintu way sii fogaanaysaa mar walba xanuunku sii badanayaa su'aashii qalbigu way sii badanaysaa jawaabna uma hayso way sii gaboobaysaa way sii taagdaraynaysaa inamadiina hareeraheedii joogaan inay halkay ku maqan yihiin iyo tumashadooda iyo guryo kale inay samaysteen iyo hablo inay haddii ka dhigo caynkaas iyo caynkaas oo la isla lumayo ayay og tahay ma hadashaa may habeenkii dambe waxay goosatay inay hadasho hadal bay tidhi kow in aad satisfaction wax la yiraahdo in qalbigaaga uu aamuso aad inta ku samriso qofku itaalka markuu waayo had iyo goor maasado ama gabaygu waxyaabaha uu leeyahay waa la isku baqtiyaa markaad caraysan tahay aad seexan weydo haddii aad waxa aad ka seexan weyday hal u haysato hawraar u haysato ama agtaada raadiyo furato nin tirinaya mushkiladaadii ka hadlaya waad seexanaysaa waa relief wax la yiraahdo waa la isku baqtiyaa waa la isku qaboojiyaa tabeedna waxay tiri hadalo aad culaysku ha kaa yaraado koow hadalo ha gaadho hadalkaagu dadka oo mujtamacu waa mujtamac ciyaar maaha baaqaaga iyo dhibtaada waa la gaadhsiiyaa iyagaa dadka u hiiliya dulmane dadka gaadhsii ha la isweydiiyo dadka inamada laga hadlaya waa kuwama ha la isu sheego isha ha lagu gubo ixtiraam ka hadlumiyaan farta ha la isugu fiiqo tabeedna meelay galaan hawaayo marka la yidhaahdo wariyaa kan halkeena marmare ee isqaadqaadaas miyaanu ahayn kaa hooyadii sidaa tahay halkaa fadhida ee ku dayacan tahay gabaygan ay tirisay miyaanu ahayn maalintaasuu geedu galo waaye farta la isugu fiiqaya xataa gabadhan ay isla lumeen iyada qudheeda la colaadinaya tabeedna marka tuu meel galay waayo waxa ku qasban yahay inuu isagoo soconaya inuu yimaado la yiraahdo wariyaa heesaa loo tirinaya gabayaa loo tirinaya isaga qudhiisa iyo meeshuu ku mashkaladaysan iyo waxaan oo dhan waxaas waa hiilka mujtamac qofku inuu sidaa markuu ugu gudbiyo dadka mashkaladiisa xaq ah
si uu hiil u helo waatan arrintu dabeedna arrintii bay habeenkii dambe ooda ka qaatay si hufan oo islaamnimo ku jirto dhaqan suubani ku jiro hooyanimo ku jirto xishood ku jiro sodohnimo ku jirto afgubayda ayay ku halaan hashay ama ay ku calaacashay hoga tusaale waa maasooyinkani waa kuwa leeyada hoga tusaalaha inta siyooday marba si ugu dhigaysa wax ku tusayso ilaa iyadu maaragtay intaas ay aamusnaydo intaas hoosta cabaa soo marto hadalkay oranaysa waa mid culus islaam waxa laga hayaa inay inama badan dhashado midna macna yeelan waayo markii hore waxay u wada bixisay libaax iyo guuleed iyo liibaan iyo sidan iyo sidaas bay u dhaqaaqeeno maalintii daba fulaxantii ma mooge dariska iyo darisyada iyo islaamaha ficilku ka dhaxeeyo way og yihiin inamadii ay magacyada u bixisay waxba ka jirin maalintii daba iska badheedo islaam dumarkii oo meel fadhiyo timo waxay tiri tib dhalay oo mooye dhalay iska sii muuqda dhalay soo muuqda dhalay madalooti dhalay gobla wiil lagu falaanahay bay tiri baladeeg hadda magacyada u bixisay kooy markii dambe runtoodii la baxday waa tib waa mooye iska qof sii muuqda waxba la sii muuqan qof soo socda waxba la soo socon madalootiguna waa qorigan habeenkii xirada laga dhex taago wadaanta lagu foorariyay bahalku hamooda qof ayaa madalooti la yiraahdaa gobla wiil lagu falay baanahay taasina waa mid sheeko hindiya jirto la oranayo inaan baayna jeclaadayoo markaasay tiri bal raganimadiisay tijaabinaysayo waxay ku tiri mayaad jeceshahay shardi baan kugu xidhayaa ee ma fulinaysa waxa la waxaad igu xidho waa fulinayaa buu yiri hooyada wadnaheeda ii keen bay ku tiri teenkii madalooti intuu iska soo dhaqaaqay ayuu hooyadii u yimi oo yiri hooyay gabadh baan jeclahayo te wadnahaaga igu xidhay maxaa tala ah oo heede adaa wadnaha ku siiyo ma ku yeelaysaa way ku tiri haa buu yiri goosay tiri midii soo qaato islaantiibu wadnihii ka goostay inuu iska dhimatay wadnihii uu sido ayuu la soo ortay sidoo la ordayay ayuu kufay wadnihii halkaas oo kale ku dhacay wadnihii baa loo yiri hooyo wax ma ku gaareen kayo boorkiis ka tuyo gabadhii buu iga qabo waa kan waxa tawaarod negatif ilaa ma calahay ninka hooyadii wadnihii hooyadii sitaa de way gabadha yeelaysaa halkii hooyadiina ku seegay tii kalena ku seegay marka islaantu ka hadli mayso hunguri iyo halka wax la mariyo Allah qoray dadku wixii la hayaa la wadaagaa waxay ka hadlaysaa qalbigan wadna hilbahan kala maqan ee nusna iyada yahay nuskii kalena ka maqan yahay ayaa nuskan iyada qalbigan nuskan ku yaala nuskii ka maqnaa raadinaya hilba kala maqan weeyo istoonayo lama aamusin karo inay soo horjoogsadaan iyo ilwaadsiga iyo ku ildoogsiga intanu baba dawo u ah hunguri ugu dudi mayso kabayguna kuma salaysna إلى أركتون بودوا أنت نوكليه طبعا سيدنا أوبلوداي وبقول بيدو حدي أنت هورس لا الله شرحه ملاين ما يري فاهين وباهن تهاي تذكر كل وحبا الله هم بيا وتذكر قيمة الساعة ويسكلي وينك عاودك شكرين باش لو ذاكو أنا راه أنا عدم تفرفرتيد أنت نواعي كان هنقولي على فبا حكومة هنتينا دقن باش شوبا dadkana hidihiisa guud wixii la hayaa dhixyaal anigu hunguri bawtu dimaayo ta Allah qorado umadu dhaqan bay u leedahay wax wada cunid oo hidihiisa guud wixii la hayaa dhixyaal laakiin maxaan ka hadlayaa xaqiyo hal buuxintiisa habboonkiyo waalidtiisa hilbiyo ku arooridooda sidoo uga hawl yaraysto halmaan la yeeli maayo nimaad dhashay kuma dhalin oo qoraya waan ku ilaawi ina ama yani waxaan cudurdaan noqonay buu inuu ku maqnaa ayuu sheegaya iyaduna waa tan seexan weyday ee waxba culi weyday isagana dhayal bay la tahay marka taa ka hadlaya waa tan waa mid culuso waa xaq waalid leeyahay oo xaq ilaahay marka laga yimaado ka labaada
حقية وهالبوحنتيسا هبونكية والدتيسا هلبية كأروري دودا سيدو أوغا حول يرايستو هالمان لغا يلي مايو هوية تمشي دشيد هلكو كو مغرب شيء أما قبل كله هالنقطة أما شاد هالنقطة أما وحكي بالوديسي وكو مغنا أي مركا أبهريسا هوية تمشي دشيدا هوية تمشي دشيدا كذا عن هاتسكاك هايغيران وبدكayga hooyada waxa hadlaysa marka hooyo dhab hadlaysa sida ku banaan ee xaaladaas haysato oo dhan ayaa ka baygani ka soo jeeda ma hooyada run ahay mid kasta oo xaaladaas haysato oo la ubadkeedii sida ay uga farabaxeen taasa way ku jirtaa barbaar hana qaad ku leexday duciya habar qaadan waayay ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaan aqooni hoygii maran wiilashiisa haween dumar baa ka sheegta hablaha kacay baa u yeedha haldaa jecel baa u qaybsan inaan lagu rogmadayo xaabo iyo dhuxul iyo caano iyo tan lagu soo koriyay ama inanba oo inaan cidla ka helo iskala dhaqaaqay ama inaan iskala dhaqaaqday oo gurigii ay iftiinkiya ilaa iska noqon lahaayeen madow yahay oo qofkii ay ka farxin lahaayeen murugaysan yahay bal hada ka war ayuba sidaan u hadlayo hadalkan marka waxay leedahay wali qof la koriyay oo markuu loo dhameeyay barbaar hanaqaad ku leexday iska dhaqaaqay duciya habar qaadan waayay isku qaadan waayay hooyadii ama aabihii ama labadaba iyo ducadooda intaas wax walba ka doorbidi waayay ciriya heegu noqdaa haraysa dhulaan aqoon waa cil ku daaya meelan garanay oo qofka gabadha ay uu halka ku soo ay isku shitaanay gogasha quruxda badan u dhigtay waxa dil la weydiin ninkan ku soo galay kula jooga maxaa xorsaday mooyi waa mid hada ugu fiican xorsaday waa mid ilaahay soo sakhiray hadii kala xorsaday waa mid meelaha ka yimid oo jiriyay soo xiyay baa aan garanay hada eegata waxa lagu abaal marinayo qofku marka uu wadada ka leexdo islaanta hooyana maxay sameeyay ma aabana tii salaadu tukada gacmuhu koru taagi lahaa oo markaas kalgacal gali lahaa markuu eegaba qaybkiibuu ugu faani lahaa markaas uu ciil beeli lahaa halkuu u dhalay buu iskaga gufayn lahaa intana isagana badbaado adduunka badbaado u noqon lahayd tabeedna maxay tiri inaan hadlo maan jeclaysan bal hada afeefta inaan hadlo maan jeclaysan baxanaanana maan hor joogsan hubsiinana maan ilaawin hogeediya xaajadayda dareenka haloosigiisa hugiisa inaan ka qaado hayaan ka fogaaday baa leh yani iska hadli maayo fudayd hadli maayo hubsiina la'aan iga hadlin mayso laakiin hayaan ka fogaaday iyo ubadka iska dhaqaaqay ayaa inaan hadlo igu khasbay oo dadku maqlaan markan cidla hiil ka waayay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayay sheego ama calaalkeeda cidla aan ilaahay igu qaban markan cid iga hiilisa ka waayay aniga aqal madow noqotay naftayda halaan halkeeda waxaan huri waayay sheego waxaan isiri dadka gaarsiin hal lagu la maqlo oo colaadoodu cadowgoodu habto haantii luulatay dhageyso waa cid ku saban qabta ama ninka jaadka ka iibinaya noqdo ama gabadha hadii ay ka dhigo xogaagiisa de u hadhay ha noqotee haantii luulatay dhageyso hoobaanta agtaada taala hadhiinadu baadi weeye hashii korisa u ciilan tabeedo waxay xusuusatay waalidku waa laba midun marka uu intiisa guto in abaalkii la celiyo oo uu marka ilaawo dhibtii iyo in la gudi waayo ay hor timaado wixii uu kula soo maray tabeedna imika waxa hor timi tacabkii ubadka ka soo maray tabeedna waa tan waxay tiri qofaad halab saaridiisa daryeelka horseedadiisa dadaalada heesihiisa habeenna ka seexan weyday ku meel maray heegantaada markuu hagar ku baneeyo dharaarku haleeli waayo hortaada waxa yimaada sidaad ugu heelanayde haraadiyo waa kalkiisa waa xiladeedii aad guri lahayd hilaac baxayo dhageyso wuxuu isagii u yahay iyadoo haraadan hilaac meel halkaas wacda ka hayo aan gaari karayn hilaac iyo waa kalkiisa haraadiyo waa kalkiisa hilaac baxayo dhageyso siday tala kaaga hoostay calooshu intay ku hoysay
hiyigu ku baxnaaninayay horaadka intaad jaqaysay dhabtaydu intay ku haysay intaad huwanay taftayda hobayda intaan dusha kuugu heesay intaan hanad kuugu yeedhay hawraaraha kugu ammaanay intaan hubin kuu xambaaray dartaa u hoggaansanaaday hadhuubada aan ku siiyey habniin adigoo ku diiday intaan hamba kuu daboolay hamuun iyo gaajo qaatay adoo haqabeel ku seexday intaan hurdo kuu ilaaway ilaashay hareerahaaga hunga ay xusuusinaysa hayaydana meel shishaale hilowga nafta aloosan ay kalgacal bay haya boholyow hilowga nafta aloosan ka shaahin qanaysa goorba waa qalbigii hanka ay waraysanaya hankii ujeedadan ku dhalay ku haweenidaan ku hanweynaa ee aan ku hungoobay wax weydiinaysa hanka ay waraysanaya talow hebel mee ku foogan mee hebel aniga hirashaa isweynay higsiga nolosha adkaaday adduun iyo haybsigiisa hangooli'idaan ku daayay waxaan ku hagaagi waayey dhankaad ku hagaagsanayde adoo ka hanweyn xaggayga qofkuugu hanweyn dantiisa ciddaad ku hadlaysay mooyi waa marka ay gurigii ay ku dhasheen iyo uskagii ay ku reebeen ka hawoodaane ay jeermiska iyo waxaa sheegaane ay gobol cadoo nadiifa ay doontaan ee wasaqdoodii ay diidaan halkii lagu meeray wasaqdo ilaa hararadan iyo gurigan iyo aqalkan iyo darbiyadan waxa wasaqda ku taala waa tiisi waa saxaradiisa siinkiisi weey ya markaasay imaka waxay leedahay adoo ka hanweyn xaggayga qofkuugu hanweyn dantiisa anigu baadee anaa dantayda kuugu hanweyn oo kuu dhalay adigu daniga malida anaa dan kaale cid adigu hadlaysay teemooyin halyeynimadaada sheelan habowgiiyo dhiirintiisa ayaan halis kuu tusayne intaan kugu hawla daalay intaan kugu hooda sheegtay intaan hebla kuugu faanay hilaado fog bay lahayde inaan hafarkaaga qaato sidaad ku heshaa daaweyne adiyo habigaaga mooye waar inaan uunbay dhashay sidii islaantii aan ka sheekayn in uunbay dhashay kuuma dhaline waar ujeeddaan kuu dhalay oo kuugu tabcay oon kuugu soo jeeday oon kuu xambaarayey oo haddii ilaahay ka dhigo aan kuugu heesayey dee inaan hafarkaaga qaato inaan uunbay dhashay oo hafara intaa inaad dhalmadu inay intaas qura noqoto ilaa habaare dee yeeli maaye sidaa taa go'aankaa ku qaadatay adiga habigaaga mooyde waa adiga iyo garaadkaaga ay tahay adiga iyo garaadkaaga weeye haddana hooyadu bal hadda docda kale aynu iska taagno ninkii gooyey ee intaa ka soo martay ee aynu ka sheekaynay haddana waa tan aakhirka habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay xaggayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo huq baase ku raadinaysa waatan hooyadii waxay tidhi habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay haddana inaad rag ugu horrayso ayuumaan haddana jeclay hooyo mooye cidtaad odhan kartaana waa laalayu jirin aabbuhu waabu dayriyaaye intaas aabka ciilbeel ka dhigtaaye ninkii odayga ahaa ee ogayd cidda haantiisii ku lolata haantii iyo tay u tolatay halka taallo oo haddii la ka dhigo maaragtay gidaaday way gidaaday baa leedahay haantii habaaska inaad cantuugto adoo hanadaan ka doortay xaggayga hibaan ku saaray xaggayga fasax baad ka tahay xaggayga hibaan ku saaray anigu ku habaari maayo oo kan dee ku odhan maayo laakiin kan iyadu ma xukunto anigu ku habaari maayo huq baase ku raadinaysa qalbiga soo boodaya ayuun baan jirin meelaad ka gashaa uu ku daba socda xaq baa ku daba socda weeye daqiiqad kasta halis buu wallaahi ku sugan yahay qofka taa la dhaqaaqa qasaman billaahi qofkaasi waalidka sidaa uga dhaqaaqa xaq ee gudi waaya daqiiqad kasta meel kastuu marayo halis buu ku sugan yahay inuu dhulku la go'o hawaala adduun rabbaa og dadkuna kala hooda weeye hadeer iyo tii hadeer hadhow iyo tii hadhow anuba hooyada hoos iyo sare tii ku raacda anuba hooyada ya kasta tag ama cirka tag ama dhulka tag waxa doonta samee wallaanad hooyo kale u yeelanay haday tala alla kugu timaado caawa inta lagu soo qaado ya ayaa dabeetana halkii aad ka hawatay ka dhaqaaqday saa lagu soo dhigaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.